shirkadda baabuurta samaystay lagu magacaabo Pininfarina ayaa dhawaan magaalada Ganeef ee waddanka Talyaaniga ku soo bandhigtay gaari aan noociisa hore loo farsamayn waana mid dhammaantii ku shaqeeya koronto. gaarigan oo ku shaqeeya koronto wuxuu noqon karaa midka ugu orodka dheer guud ahaan baabuurta ku socota dunida waxaanay xawaaraha saacadiisu gaari kartaa ilaa 250. cabirkaas ayaa orodka gaarigan ka dhigay mid aad u dheeraya isagoo tamata gebi ahaanba ka hela qulqulka korontada. awoodda fariinkiisa oo kaliya ayaa u dhiganta 2 jibaar awoodda gaadiidka caadiga ah ee hadda ugu sarreeya dunida. maaha gaarigii ugu horeeyay ee electricity ku shaqeeya hore waxaa magaalada Ganeef loogu soo bandhigay baabuur noocan ah balse ka xawaare hooseeya gaarigan. waxaa ka mid ah 2 nooc oo ay soo saartay shirkadda Rimac iyo mid ay soo saartay shirkadda kale ee lagu magacaabo Tesla. marka laga soo tago xawaarihiisa waa gaari nooca raaxada ah oo aad loo qalabeeyay. shirkaddan ayaa hore ugu caanbaxday soo saarinta baabuur soo jiitay indhaha caalamka kuwaas oo ay dad badan daneeyeen. soo saarinta gaarigan Pininfarina waxaa lagu maalgashaday lacag gaadhaysa 20 milyan oo euro waxaana ka mid ahaa adeegyada nashqadeynta injineernimada iyo soo saarista gaariga. waa gaarigii ugu horeeyay ee ku shaqeeya koronto oo ay soo saarto shirkadda Pininfarina ee laga leeyahay magaalada Ganeef ee dalka Talyaaniga. sidaa darteed waxaa loogu magac daray magaca kombaniga Automobili Pininfarina. waxaa ku rakiban 4 matoor oo ku shaqeeya tamarta korontada waxaanu 2 daqiiqo gudahood ku jari karaa 100 kph oo u dhiganta 27 mitir. sidoo kale xawaarihiisu wuxuu halkii saac ku jari karaa 100 kilomitir.